Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idinka wadaa qiso gabar walaasheen oo gruubkeena ku jirto ii soo gudbisay. Walaasheen waxay tiraahday waxaan bilaabay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam 2022 walaal YouTube ku jiray oo la dhaho barakada saliga nabiga ayaan ka dhageysan jiray qisooyinkiisa. Saliga Ibraahimiya ayaan ku bilaabay iyo suura Baqara anigoo salaada berigaas ka sigseegi jiray. Ma aqoon dikri kale. Quraanka mar hore ayaa igu dambeysay. Markaan maqlay fadliga Al-Baqara ayaan isdhahay bal iska akhri suuradan. Markii aan bil waday ayaa hadan waxaan ku daray saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam kadibna waa la igu soo booday. Sakaraad iyo tabcaan sariir baan korayba. Waan waday salaatul Ibraahimiya kun ayaan akhrin jiray suuratul Baqara iyo adkaarta subaxdii iyo tan habeenkii. Marka hore sidaan baa Al-Baqara u bilaabay waxaan bilaababa inaan salaadeedii si wanaagsan u saxo oo aysan iga tagin. Muddo yar markaan wadayna xanuunkaas ayaa igu bilowday iyo riyooyin xunxun sidii masas anigoo marba iska oynaya caruurteedii aan ku boodayo afka bushimaa xataa waxbaa ka dareemi jiro in igu soconayaan naasaha aad i xanuuni jiray jir xanuun gurigeyga waxaa korkaasoo daadan jira bahalo dhintay iyo bahalo nool habeenkii waxaan ku riyoon jiray masas waaweyn oo ceersanaya markaan damco inaan jidka ku socdo dhulka ayaa la ifriisin jiray oo dhabarka ayaa la igu dhufan jiray waxaan dareemi jiray in dhulku ila soconayo anigoo dhulka yaala baa dareemi jiray inaan jaranjaro korayo oo meel kore aan fuulayo. Dhaqaatiir waaweyn oo Muqdisho ayaan u tegay. Waxaa la igu sheegay in laga yaabo inayd kansar tahay oo naasaha ka qabo. Markii lagu sheegay wax sidaan u xun, hurdo waan ka tagayba. Wajigeygina aad buu isku bedelay. Walwal weyn baa igu dhacay. Har iyo habeen la ii diiday inaan seexdo. Marka waxaa la ogaaday aakhirkii inuusan waxaan kansar ahayn ee cudurro ruuxiyan tahay. Waxaan akhrinayay markaas 1000 salawaat Ibraahimiya ah oo iga qaadanaysa 6 saac iyo suuratul Baqara. Markii dhakhtarka ay baareen si fiican waxay igu dhaheen wax yar ma qabtid xataa infection xataa ma qabtid. Dhakhtarkii baa wuxuu igu yiri inantan wax ma qabtay quraan saar geeya. Aniga maba aamininba ninkii dhakhtarka ahaa. Niyada ayaan iska lahaa bal haddii aan lacag haysan lahaa dhakhtar dibadda ayaan tagi lahaa. Waan hubaa in xanuun waaweyn ay jireen. Kadib ayaan bilaabay haddana xawqaladii 15,000 ayaan akhriyay. Masaajid ku dhex yaala ama agtiisa cusbitaalka Digfaar oo Muqdisho ku yaal ayaan tegay si aan u tukado salaatul duxaa. Markaas baan suuxay waxbaan iga dhex hadlay. Waxbaa iga dhex qayliyay sida la ii sheegay. Kadib quraan baa la ii saaray hal mar. Kadibna waxaan sii watay xawqaladeydii iyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waan fiicnaaday alxamdulillaah waan bogsaday. Waxaa ka daran meel kasta oo risaq iga imanaya sida roob ahaan buu igu soo da'ay. Walaal oo weligay lacag siin jirin baa ii soo diray gabar kale sidoo kale meel aan kala dhigo ayaan aqoon waayay lacagtii shaqooyin fara badan waa isoo waceen kuwa aan dalbaday iyo kuwa kaleba guri weynna waan kireystay wax kasta way isugu kay dul saarnaayeen xitaa guur waxaan ku heshiinay nin maal qabeen ah oo aad u fiicnaa waagaas waxaan ahaa qof oo iska furfuran oo jecel inaan qof kasta aan arko la wadaago khayrkayga oo u sheego nimcadan aan ku jiro oo dhan waa ilaahay fadligiisa oo waa dikriga aan wado ee sameeya idinkana xawqalada akhrista aniga intaas baan samayn jiray waxbaan ku helay falaqayn xoog leh baan dadku u galay qof kasto iga hor yimaada dib uma arkeen sidaa haddaan marka aan arko qof waxaan ku dhihi jiray dib hadduu ku haysto saliga nabiga badi xawqalada badi albaqara badi kadibna waxay weydiin jireen adiga meeqaad akhrisaa anigana waan u sheegi jiray wax walbaba details badan ayaan siin jiray qof kasto aan arko oo iga hor imaada anigu waxay iga ahayd arrintan dadka u faa'iideey oo khayrka la wadaag iyaguna waxay la yaabeen waxa aan samayn jiray ma 35 daqiiqo bay albaqara kaaga qaadataa macquul maba ahayn ma intaanu dhan baa saliga akhrisaa sallallahu calayhi wasallam anigu waan ugu adag yahay bay dhihi jireen kolkii aan bilaabay albaqara horta cunaha ayaa la igu dhegi jiray dhareerka baa iga daadan jiray xanuun dartii laakiin markaan sii waday ilaahay waa igu caafimaad siiyey hadda maxaad ku taqaanaa marka bini aadan oo nimco badan la siiyey markii koowaad albaqaradii waa ka tegay oo waan joojiyey inkastoo dikrigii si buuxda aan uga tagin laakiin waswaas baa igu dhacay marba dikri ayaan u boodi jiray mar istighfaar mar salawaad marba si meelba u boodi jiray laakiin sidii aan u waday oo tooska ahaa uma samaynin shaqadiina waan ka tegay muddo 2 sano ah baan sidaa ku jiray nolosheedii baa iska qasantay guurkii aan guursan lahaa wuu fashilmay waxaan galay nolol ciriiri ah oo rafaad iyo silic ah xanuunkii xumaa iguma soo laaban laakiin xanuun yar ah baa iska jiray caajis iyo riyooyinkii xumaan way igu soo laabteen maba ka kici jirin sariirta mararka qaarkood taleefon baan gacanta ku haystay dadkiina way i naceen
hadda ayaan bilaabay bal inaan dhaqdhaqaaq sameeyo aan baqara waan akhriyaa marmar iyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam laakiin ma joogteeyo waxaad natiijo ka gaartaa marka aad daa'into dikriga oo aad ku nagaato hal wax uun markaan ciriigan kari waayey 4 bil ka hor ayaan damcay inaan saliga sallallahu calayhi wasallam kusoo laabto qalbiga ayaan aad uga jeclahay laakiin waxbaa i hortaagan sidaas iyadoo ah haddana ma joojin jirin haddii xitaa aan ka habsaamo waxyar waan kusoo laaban jiray hal habeen baan go'aansaday inaan maqrib intaan bilaabo ilaa habeenkii oo dhan aan u dhafro oo kafee u cabo si aan u akhriyo ibraahimiyada ilaa iyo subaxdii markii aan dhameeyey maalintaas subaxdii udgoon cajaa'ib leh ayaa ii soo carfay oo weligii aan ka carfinin gacmahayga kadib sakaraad baa igu soo booday isla markiiba qoortaa la igu dhuftay matag baan bilaabay calooshii baa i barartay dhakhtar baan u orday marna isma oran xanuunkan inuu ka socdo sarabaadkeen aan sameynaya xalay oo dhan dhakhtar u sii orod iyo kasii orod baan ku jiray daawo kastaa la i siiyey aakhirkii dikrigii baan ku laabtay xanuunkii xoogga badnaa waan ka roonaaday hadda ilaa muddo 4 bilood waan wadaa inkastoo aan tiro badan gaarsiin risaaqadiina way ii soo korortay alxamdulilah sidaan u bilaabay riyooyin baan ku riyoodaa baryahan riyooyinkaas waxaa ka mid ah mid abubakar sadiiq oo ku jiro masaajid oo lidhahayo halkaas buu carruur agoon wax ku barayaayo orda u tag iyo aniga ku jawaabaya abubakar wuu dhintay waqtigii saxaabiyiinta markaas baa lidhahayaa wuu noolyahay orda u tag habeenkaasoo dhan waxaan akhrinayay salawaadka siiqada gaaban ee ibraahimiyada habeen kale waxaan ku riyooday wax madow oo jirkayga ka soo baxaya naag ilmo wadata oo timahayga jiidaysa iyadoo albaab ka sii baxaysa waxaan waxay dhacayeen maalin kasta oo salaatul ibraahimiya aan u soo jeedo oo aan badiyo marka hadda haddaan idinkaga warramo waxa dhacay sidaan u bilaabay tartanka challenge-ka groupka hadda aan ku jiro tartanka ma soo dhiga badanaa inaan sameeyo maalin kasto laakiin jimcihii hadda lasoo dhaafay safar baan ahaa allah baa ii waafijiyey inaan ka faa'iidaysto safarkan dheer oo aan galayay jaanis weyn bay ii ahayd saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam siiqada gaaban ayaa waxaan aqriyay 25,000 waxaa kaloo ku jirta 500 oo ibraahimiyada maalintaas waqtiyo waxaa jirta oo aan counterka gacanta ku haynin laakiin afka aan ka waday markaan mashquul ahaa inan aan dhalay oo teenage ah baa la dirirtay aabaheed waa nin wanaagsan oo ahludiin ah waan kala tagnay laakiin aad baan u jeclahay inay aabaheed la heshiiso murugo badan ayaa arrintan igu haysay markaan akhrinayay salawaadka arrintan ayaa niyadda ku haystay in ilaahay subxaana watacaala ii xalliyo wallaahi baan ku dhaartay 2 daqiiqo ka hor maqribkii maalintaas gabadhaydii ayaa isoo wacday iyadoo dhahaysa aabe ayaan la hadlay oo waan la heshiiyey awal baan ka kari waayey inay la hadasho aabaheed inta aan noolahay lama hadlayo ayay dhihi jirtay facaas ma iska taqaanaa alxamdulilah allah baa mahad leh akhriska salawaadka aad baan uga faa'iiday safarkaa dheer jaanis buu ii ahaa inaan akhristo indhashareer ayaan qabaa oo kaas baa i saacida qof i garanaya ma jiro carabkayga inuu nuuxnuuxsanayo haddii kale waxaa lagu oran lahaa oo markaas dadka i dhahaan maxaad intaa akhrisaa maxaad sheegaysaa maxaa isla hadlaysaa dadkan ma ku daynayaan intaas afkaaga unbay fiirsanayaan markaas baad is arkaysaa adigoo joojisay oo shaydaankiina kaa faa'iidaystay dadka dhibkooda saa isaga joojiso marmar baan is dhahaa yaa safar dheer ku geliyo adigoo carradaa iska marayso oo iska aqrinaysid dikirkaaga taleefankan ayaa kaa qaada wax ku qasqasa ma aad arkaysid adiga ilaahay iyo jidkas dheer baad jeexaysaan taas nimco ayaan u arkaa markii aan safarka ka imay anigoo qolkayga iska jiifa oo aan weli akhrinayo salawaadka ayaa gabar walaashay ii soo gashay qolka markaas bay igu tiri maxaa maanta qolka ku shida oo kasoo carfaya waxay tiri walaal ii sheeg cuudka aa shidatay maalintaa jimco ayay iska ahayd carruurta ayaa guriga joogeen oo wax kastoo iska qasnaayeen wax la nadiifiyey jirtaba iska daa wax la shidee subxaanallah udgoonkaas mar kasto aan akhriyo waan dareemaa meel ama jihada uu ka yimidna ma garanayo gabdho badanna way ii sheegeen udgoonkaas inay carfiyaan mar kasta ay akhrinayaan salawaadka marka walaashin qisadeeda intaas bay ku eg tahay ilaahay khayr ha siiyo una soo duceeya iyada iyo qoyskeeda iyo ehelkeeda insha allah marka intaas bay noogu egtahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu